maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin aad u muhiima oo waxtar weyn soo kordhin doonta oo bishii 18keedii bishan koowaad sanadka baarlamaanka Soomaaliland uu baasgareeyay taasoo ah xeerka sahaminta iyo soo saaridda shidaalka Soomaaliland xeerka oo soo maray waqti dheer jira caqabado badan soo maray xeerka bilowgiisa waxa la bilaabay oo wasaaraddu bilowday 2014 iyadoo la kaashinaysa khubaro caalami ah oo Norwegian ay wasaaraddu xeerka bilowday markii Xuseen ka ahaa ministerka xeerkaas waxa la geeyay baarlamaanka 2018 si loo ansixiyo xeerka muhiimadiisu waxa weeye shidaalka baaridiisu waa arrin dhaqaale badan ku kacda waqti badan la geliyo marka shirkadaha waaweyn ee ka shaqeysta batroolka si ay ugu badheedhaan ama u qaataan inay baarid sameeyaan waxa muhiim u ah laba wax inay daato helaan meesha inuu shidaal ku jiro in kale iyo in la helo xeerka wadankaasi uu yahay mid lagu shaqeyn karo oo xoolahooda ay ku aamini karaan labadaas muhiima markaas hamin badan oo la sameeyay iyo baaris badan oo wadankeena hore looga sameeyay waxa lagu ogaaday in wadankeenu yahay meel laga heli karo khayraadka dabiiciga ee batroolka iyo gaasta laakiin waxa muhiim noqotay qaybtii kale ahayd xeerka sameyntiisa in la bilaabo la sharciyeeyo lagu qanciyo amba lagu soo jiito cidii maalgelin sameyn lahayd sidaa sheegay xeerkaasi in badan buu halka yaalay waxaan maanta aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guurtida Soomaaliland oo iyagu ka soo qaatay waajibkooda oo golaha uu soo gudbiyay in goluhu bisha 18keedii uu hirgeliyay oo xeerka sharciyeeyay xeerkaana dhameeyay wixii iyaga ka khuseeyay oo waajibkoodii ka guteen arrintaana waxa mahadeeda leh koow oo ka bilaabay wax weeye shirgudoonka oo aad uga shaqeeyay gudoomiyaha Cabdirasaaq Khaliif Saciid Giire iyo Cali oo aad u dadaalay gudida khayraadka oo Mubaarak iyo Jamaal ay ku keenayeen gudoomiye ku xigeen iyaguna aad arrinta uga shaqeeyay xildhibaanada golaha oo iyaguna ku qancay warbixintii ay ka heleen gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudida khayraadka oo iyo akhrintii ay akhriyeen sharciga iyaguna ku qancay in sharciga la xalaaleeyo la sii daayo aad iyo aad baan saddexdoodaba iyo guurtidaba ugu mahadnaqayaa xil weyn baa gudateen halkaana ishaaraf fiican baa ka muuqato golaha cusub markaad eegto fadhigooda nimika tallaabooyinka wanaagsan ay qaadeen ee ay tahay ansixinta xisaab celintii ansixinta miisaaniyadda ansixinta wasiiradii ansixinta iyo sharciyeynta xeerka shidaalka waxay muujinaysaa in goluhu dariiq toosan marayo ku dadaalayo wixii wadanka wax u qabanaya wax u hagaajinaya looga baahan yahay in waajibkooda ka maraan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa shaqo fiican wanaag badan aad iyo aad baa u mahadsantihiin in guud ahaan waxaanu ka samayn doonaa barnaamij arrintan si dadweynuhu u fahmo oo detail ah ayaanu samayn doonaa waxaanu samayn doonaa ku kabi doonaa sidii quruxda badnayd ee baarlamaankuna u fuliyay ee uu sii daayeen ayaa lagu filaafaaqi doonaa waxa soo bixi doona barnaamij insha Allah dadweynahana fahamsiiya hawsha la qabtay baaxadeedu inta leeg tahay iyo wanaag leedahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guurtida iyo golaha wakiilada iyo golaha hoosaadka khayraadka intoodaba aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr xil baa gudateen dariiqa wanaagsan ee aad ku marteen ee wadanka wuxuu qabashadiisa ah ee wadaniyadu ka muuqato ku sii wada waxaan ku darayaa xeer kale oo isna kan u baahan yahay oo lagu kabayo aanay kala maarmin baa golaha imka hor yaalla oo ah xeerka maamulidda sidii loo maamuli lahaa khayraadka oo wasaaradda maaliyadduna ay shaqo weyn ku leedahay iyadu cidda doonta cidda hadhow fulinaysa
ay noqoto markaa mar labaadna waxaan idinka codsanayaa sharcigaana inoo dadejisaan si uu kan u kabo waayo ma kala maarmaan waxaa ka sii dambeeyo isagana idinla yaala sharcigii tamarta oo wasaaraddu u baahan tahay oo baahidiisu aanay ka yarayn kan shidaalka markaa aad baan idin salaamayaa aad baan idin bogaadinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu